siyaasi bare xaaji axmed faarax oo la garoon og yahay bare dhagasuun oo kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Sanaag kuwada ugu tunka weyn loo maanta warbaahinta qaar kamid ah kula hadlayay hoyga uu ka degan yahay caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ayaa baa ku aadan doorashooyinka u diray dadweynaha ku dhaqan gobolka Sanaag isla markaana ugu baaqay inay fartooda ku ceel baxaan isla markaana ay doortaan cid iyagu oo arkaan inay munaasib ku tahay maadaama aynu waqti doorasho ku jiro hadaynu nahay reer Soomaaliland oo ay waliba aad moodo in gobolada galbariga goboladii bariga lagu siyaacayo hay xusbiyadii ku siyaacayaan oo musharaxiintoodina ay dadka ugu dambeeyaan oo waqti gabagaba ah la shaacinayo sida daraadeed waxaan jecelahay inaan dadka baaqu diro gobolka Sanaag waxay ogaayeen waan leeyahay waxa ogeydeen saddex xusbi qaran laba xusbi oo mucaarad iyo xusbi kulmiye la yiraahdo waxaan leeyahay xusbigii kulmiye loo dhan jiray maanta xusbi jira maaha dadkii beelbeel baa looga baxaya waad ogeydeen oo xusbigu karaamadiisii iyo sharaftiisii waxa ina bixi baa loo tirinayaa inuu maaragtay sidii ina bixi u cunay ayaa xusbigaas meesha uga baxay waxaan leeyahay dadweynaha reer Sanaag xusbi kulmiye la yiraahdaa ma jiro xusbiyada mucaaradka wax la qaybsada oo ka sharaxa musharaxiinta ka socda mucaaradka wax la qabta niyaan sanka leedinka gelin xusbi aan maanta noolayn maaragtay waan karaamo iyo sharaf lahayn oo Soomaaliland ku lahayn xukuumad baa jirtay laakiin xusbi kulmiye la yiraahdaa ma jiro geesta kale waxa uu bulshooyinka ku dhaqan gobolka Sanaag uga digay siyaasiyiin ay isku reer yihiin oo xisbiga xaakimka talada dalka haya ee kulmiye uu dabada ka riixayo isla markaana uu soo dhiibay lacaga campaignerka ay ku galaan waa sida uu siyaasigu hadalka u dhigay sida daraadeed campaign baa lagu bixinayaa xusbigan kulmiye aad u sareeya dhaqaalihii dawladda lagu bixinaya ragii aan oran jiray aan dhowr goor haru sheegay maxaashi dhaameel ayaa loo soo dhiibaya gobolka Sanaag bay loo soo diraya hal doonaya inuu ina bixi maadaama uu kalsoonidii dadka waayay inuu lacag ku iibsado aqliga dadka inuu lacag ku iibsado abu doonaya sida daraadeed waxaan soo jeedinayaa meesha waxa taala xisaab weyn oo aad u culus oo ka dhaxaysa reer bari ama gobolka Sanaag iyo xukuumadda kulmiye ee ina bixi hogaaminayo waxa ka dhaxaysa xisaab weyn baa ka dhaxaysa godob baa ka dhaxaysa waad ogtihiino boqor buur madow oo ahaa boqorkii gobolka Sanaag ka soo jeeday ugu boqorkii ugu weynaa boqorada ilaahay baa boqorahe in uu ina bixi maaragtay uu dalka musaafir kaga maqan yahay sida daraadeed waad ogeydeenoo xukunkii ina kaahin ceelf weyn ka yeedhiyay godobtiisii ma hadhin xukuumaduna raali gelin kama bixin waad ogeydeenoo suldaanka guud ee reerka hudheelkiisii Hargeysa lagu qaatay sidii buu ku maqan yahay ina bixina raali gelin kama bixin maalintii faylkii la soo bixi lahaa dagaalkii wixii ka dhacay halka laga argoosan lahaa maanta weey haddaan reer bari nahay ama aanu nahay gobolka Sanaag galbeedka gobolka Sanaag haddaan nahay inaanu xabad kaga argoosano waanu awoodeynay ina bixiyo xukuumaddiisa laakiin taa waanu ka daynayo qarannimada dani naga haysaayo waxaanu doonaynaa inaanu maanta codkayga kaga argoosano xusbiga meesha ka baxay ee kulmiye loo dhan jiray ee maanta la doonayo isagoo meeyda in dadka dusha laga saaro ina bixi maanta wuxuu soo diray NGO-layaashii hagii mashaariicda qaadan jiray buu soo diray oo musharaxiin ka dhigay sida daraadeed waxaan ugu baaqayaa dadka galbeedka Sanaag dega xaq badan baa idin kaga maqan xukuumadda waad ogtihiino
gobol ma lihidin berbere iyo cergaabo gobol ma dhaxayo caqligaaga hadaad ka shaqaysiiso Caynaba iyo Laascaanood inta isku jiraan waad ogtiin waa laba gobol Burco iyo Caynaba inta isku jiraan waad ogtiin waa laba gobol Maroodijeex iyo Gabiley inta isku jiraan waa ogtiin waxa gobol u diiday ilaa Burco ilaa Cergaabo inta u dhaxaysa ilaa Berbere ilaa Cergaabo inta u dhaxaysa waxa gobol u diiday waxa weeye colaad loo hayo galbeedka Sanaag loo hayo oo xusbiga kulmiye loo oran jiray maantana xusbiga calan casta isku bedelay colaad uu hayo way afar inan oo halkan mashaariic looga dhiibo oo la doonayo inay dadka gumeeyaan way biciide gumeeyaan la doonayo maanta waxaan u malaynayaa inaan laga aqbalayn dhaxaan dhawaaqay dhag baan jalaqlay siinay buu in badan baan ka hadlayo waxaan idinku yiri Muuse waa Muusihiisi in badan baan ka hadlayo waxaan idinku yiri maanta codkiina wax goynaya yaan hoosta leedin ka soo gelin xusbi bir hore ay u dhamaatay oo madaxdiisii ka wada guureen ragii xusbiga kulmiye asaasay ay ka guureen ilaa ay Siiraan uu ka guuray maanta meyd baa la dhoobdhoobayaa kulmiye wax la yiraahdaa ma jiraan siyaasi Barre Xaaji Axmed Faarax oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku booriyay musharixiinta ka soo jeeda galbeedka gobolka Sanaag inaanay iska washaraxin haba yaraatay xisbiga xaakimka kulmiye isla markaana ay musharaxnimadooda iyo taageeradoodaba ay la garab istaagaan xisbiyada mucaaradka ah isagoo ku sababeeyay in xisbiga kulmiye aanu ahayn xisbi munaasib isla markaana la wada leeyahay waxaan hadalka kaga baxaya shan cashaan dhamaan baan waxaan sheega la arkay dadka kulmiye ka sharaxan in iyagu tanaasilaan mooyaane inaan loo tanaasilin oo xusbiyada mucaaradku aanay u tanaasilin xildhibaanada xusbiyada mucaaradku aanay tanaasilin marnaba ayaan u soo jeedinaya waxaan hambalyo u dirayaa xusbiyada mucaaradka oo aan leeyahay war maanta ka faa'iideysta ina ka faa'iideysataan baa la doonaya maanta waa ina ka faa'iideysataan maadaama kulmiye meesha ka baxay ina ka faa'iideysataan dadka u soo jeedinaya in laga digtoonaado dabinka colaadii meesha taalay lagu duudsiyo in laga digtoonaado baan u soo jeedinaya waxaan ku daray lacag shaqeyn mayso maanta lacagtii uu dadka ka handaraabay ee magaca kula baxay ayuu doonayaa inuu ku iibsado oo dadka ku jara habaabiyo oo niman u soo dhiibo dhuuni qaatayaala uu soo dhiibo taa ina ka digtoonaataan baan galbeedka Sanaag u soo jeedinaya galbeedka Sanaag taasaan u soo jeedinaya waan ku adkaynayaa ilaa biciide xaqiisa helayo oo galbeedka Sanaag xaqiisa helayona anigu afhayeen baan ka ahay arrintaas oo weligay ka aamusimay waa Maxamed